السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاليال ملك استاذ جوجتان وولاله أو إسوته سعيد حاجة عمر أو جدي إيو أحمد صديق. ما أنت وحان دونينا وحكي دون وحي خرق أو ما أنت ومالنتي كجوابستا كومنتسكا أما فالوينكا نوصو قرتين أما سؤاله أدنا سوي ديسين. هاي عمر داود يا برنامج كون حسابت مدوين مركز توين فعلا قينا وين كدونا وحيابها ماشي لو سoo qoray halkan waxaan idinku haynaa faalooyinkii ay soo qoreen daawadayaasha ku xidhan kanaalka Siciid Xagaa iyo ustaadki daawadayaasha markuu way badnaayeen fariimaha aad bay u badnaayeen laakiin maadaama ka gaari karin waan isku soo qulaasaynay isku soo ururinay intii isleh يعني معناها حتى وحي اسكو دو وان مid baan ka dhignay insha Allah maadaama ay aad u badnaayeen waxaan filayaa in qaybtan idinka caawin doonto su'aalo badan aad jawaabo u heli doontaan insha Allah marka intan ma wada aha dadkii oo dhan marka asxaabta qaar hadii aanan xusi weyno ma aha inaanan ilownay ama aan arki weynay time-ka ama waqtiga aynu ku xisaabtamayna insha Allah su'aalihii isku dhowna kulli qof ayaan u sirin marka Axmed aan noo akhrin doona iyo Umar labadaba midkii ku badan especially Umar marka ana jawaabihi su'aalihi gaarka ah ayaan ka jawaabi doona insha Allah marka Umar waad noo bilaab kartaa daawadayaal dadku waxa isugu jiraan furmoonka ilaa haatan soo gaadhay wax isugu jiraan qaar noo mahad celinaya qaar su'aalna soo weydiinaya qaar iyagoo dhan dhiiri gelinaya marka aad baad u mahadsantii qoladii dhiiri gelinaysa markasta fariimiina waan aragnaa qolada mahad celinaysa iyaguna waa waxaan ku leeyahay sidoo kale halkan waxaan ku haynaa su'aalihii dadkaas oo dhan shakhsiga ugu horeeya soo qabanay أحمد محمد وحليه ولا سعيدة وحان هاي شنو تمنتير يكون بقان قاري ما شاء الله صوبر بارن لنا وحان كفاية حسابه بدن حتى أي معلمين تدي سكول كيابين الحمد لله إله ما ولا المعلم أيوم بن أبالك جودي دونا الله يبارك أحمد يرى إلهي أكو بركة أدي والدين هذا إيو ضدك معلمين هذا أنت وعود محسن تاولا حكمة عربية سرعي من علمني حرفا قفك كبر حرف صرت له عبده ما شاء الله وحنا مرينا كلمة ده هدانا قلدني الإمام الشافعي علىها لكن وان ملاينا يا أدل ما سنت يا أحمد يري إن زد كيرة كان يوتيوب كان لك يسوي مقعة وحليه هي وعليكم السلام أستاذ تانكس أدل ما سنت هاي وحن ربعنا كويديو سؤال إن بدن عن كم مغلين ملها كان بحسن 10 أوكي وأنا السؤال هالحرالة وحيود عيسى سدة واحد شيكتان qayb shimbra kamid ah ayaa geed saaran qaybna hoos ay joogtaa qaybta kor jirta hadii mid kamid ah uu hoos yimaado tiradu waxay noqonaysaa bareejo hadii qaybta hoos joogto mid kamid ah uu kor aadana tiradu waxay noqonaysaa laba jibaar waa gartay si fiican aan u gartay magaciisa muxuu ahaa waa YouTube magaciisa caadiga ah ma ku qoranaa magaca kanaalkiisa waa sadka yare sadka ma san tahay runtii horta waqti u baahan tahay waxaan rabaa inaan si gaar ah وشرحه أو تسألوني عنكم كأنه إن شاء الله وأنا كاغسو جوابي هدي على إدمو لكن هذا حن سكود يدونا سؤالي وحي حسابتكو صاب صنع عاد نسوي ديسين لكن إن شاء الله قيبها شنبراها قارنا جيت كدوش ساريهين يكو هوسه يدو فاسن أيان قيبت حل حرالة كوكين دونا إن شاء الله وأنا مع سنتها برنامج كلاي أنا كو قضية هوية معنيه صح جود أدو مع سنتي سيدك سكرية عديد بيسقونه وحنوص قريب where contact with you to share with you account because I am a teacher of mathematics in Kenya. ما شاء الله. مركا وحولي هيون حقي لقاه هلا contactiga إن شاء الله. مركا يسوون كيني جوجا. ومحسن هاي. سكان وسين دونا contacti كليته سيجار إيميلو أيان راعي دونا إن شاء الله. أما نمبر جارو أم واتساب يقول لقى لسوحي إنكستا. ayaan isagan u raacin doonaa insha Allah hadii ma haysan isaguna okay waxa jirta oo kale isaguna dadka waxa noo soo qoraya daawadayaal waa dad magacyadii kanaalada ay ku isticmaalayeen noo soo qoraya iyo dad iyagoo ashxaas gooniya marka inankani waa moog laki kanal buu ku isticmaalay magaciisu wuxuu leeyahay saaxiib Siciid Xagaa xisaabta mucjisada waan fahmay ma sha Allah balse muddada 2000 oo laga jaray 750 soo baxaysa كون سجال بقوليه صدق يا فرتن سيدي كوسو بحذا أديكو أديكسنية سلدية هذا السجال يو نمبر طبعا ها جواب عن استعمال أرتو مهسي هاي سؤال حتى نكن نسوي دي ما وحجر
boqolaal u dhow oo saasoo kale ah oo marka ay sidee ku soo baxaysaa ah marka qof walba horta gaar uma qancin karno waayo waxaan u baahanaa laakiin faham guud sababtii ku soo baxday waaba xisaabta aan dhigayay iyada un baan kala jaray iyadii ayaan kala jaray marka tusaalaha hadda dib ugu noqoto videogaas dib u celi iyadaas aan tusaalaha ku bixinayo keliya ayay tusaalahan waxay macno u yahay xisaab kasta horta meesha soo dhigaa mid la midana way noqon kartaa marka tan waa un tusaale uun waxay ku soo baxaysa waxa weeyaan waa tusaale tusaalahaas marka dadka qaar hore kama fahmaan dadka qaar markiiba way fahmaan dadka qaarna markii ku celceliyaan videoga ayay fahmaan marka taas waxaan uga jawaabi lahaa videogii ku jirtaaba sharaxaadii oo dhammaystiran marka videoga ku noqo saaxiib jooji meelaha aad fahmi weyso insha allah markaasi dib waan kuga sharxi karaa laakiin si guud waxaan jecelahay inuu fikirkaasi ku dhan yahay mo hadduu ku noqdo inuu helayo jawaabta waadna mahadsantahay si gaarana fariinta lagugu soo diraya daawadahani wuxuu leeyahay isaguna magacaygu waa ictimaad assalaamu calaykum teacher saciid calaykum salaam raxmatullah waxaan kaa sugaynaa weli xisaabtii dugsiga hoose waayo waxaan nahay dad bilow ah adigoo mahadsan waanan ku faraxsanahay habka aad waxba u sharaxaysid iyo weliba aqoontaada maasha allah mar dhow ayay isa kugu soo biirnay mahadsani teacher maasha allah qofkaasi soo qoray muxuu magaca waa ictimaad baa ugu qoran ictimaad ma gabadh baa ama wiil baa wax doonaa labadaba waa isku mid qofkaas horta aad buu u mahadsan yahay amba waan arko commentska meelo badan buu ku jiraa marka aad baan ugu mahad celinayna qofka waxaan kulwa daawado wanaagsan daawadahaas ama gabadh iyo wiil wixii yahayba waxaan leenahay horta waad ku mahadsan tahay keligaana su-aashaas ma qabtid dadka weliba qurbaha soomaalida ah ee caruurta bilowga haysta ama yaryar ayaa u badan su-aalahaasna soo weydiiyeen insha allah waan ku dadaali doonaa fahamka waayo bayska wax ka dhismaan ama aas-aaska ama saldhigga ama xagga ugu horeysa inaan badino xagga fahamka si xagga saro loogu socdo waan kula qaadanay taladaas waanan badin doonaa casharada bilowga ah ee wax lagu dhiso xisaabta si aad يعني حق السر اللي وقار إن شاء الله ما سنتهي أديك إيو ضدك كلا كل ميت كأ سؤالها نسوي دي أدب ما سنتي استسيد على بحر شرح الله يبارك إن ده والله هو مها الله فوق القرآن مها الله أديان إن ما شاء الله أستاذ بيتري الله كاتي سايسي علمي أن لو ذاكتي معلم والبا waxaan jeclaystay inaan lambarkaaga gacanta ii soo dirto waxaan rabaa inaad su'aalo ku weydiiyo mahadsan istaad waxaan leenahay si gaar ah kugu soo direynaa walaal maha kulli umar ayaa u soo diri doona jazaaka allah adaa qaabilsan de howlahaas dabcan allah yibaarik kulli qofkan waa YouTube channel baan filayaa wuxuu leeyahay xaliyaha caqabadaha xaliyaha caqabadaha ma sha Allah aad baan mahadsantahay caqabado badan oo hor yaala adaga kula wadaagi doonaa si wada xalin doonaa insha Allah naga caawiyo caqabadaha qaar aad wuxuu neeri ma sha Allah ustaad ana kamid ahaa xalay ustaad ana kamid ahaa xalay waxaan yaabanaa mar xitaa waxaan isdhahay armay isla ogaayeen nambarada balse caawa iga shaafisay aniga ilaa 5 jeer ayaan keligay qoray xisaabo kala duwan waana saxay dhammaan cilmigaaga Allah ku barakeeyo dadkani waa dadka aan leenahay wayna dhiirigelinayaan waana mahadnaqayaan markasta waxaan leenahay iyagana aad bad mahadsantahay waayo markuu ku celceliyay oo xisaabo kala duwan ku soo qaato ay qaacido u fadhiistay saaxiib waad mahadsantahay xaliye annagana wixii aan xalli weyn insha Allah wala soo wadaagayna diilayra cabdiraxmaan faarax jimcaale isaguna waa daawado kale wuxuuna leeyahay ustaad mahadsanid laakiin su'aal ayaan wataa haddii tirada qofka uu qorto ay u dambayso eber maxaa la sameynayaa tusaalahaas waxaan ana ka jawaabi lahaa marka waxaan markaynu kala jarinay afar tiro qofkan oo qabso aniguna tirada sii qoranaynay marka waxaynu leenahay tiradu qofka qorto waxa sagaal ku buuxinaya emerald qoranaysaa marka duu eber qortay aad sagaal bad qoranaysaa aad bad mahadsantahay axmed aad u fahmay sama kana waa laga shaafiyay allah aad iyo aad waxaan filayaa cabdiraxmaan faarax jimcaale inuu daawanayo eber qabsado sagaal qoro hadduu 5 qabsado 4 sax kanoo YouTube kana taariikh hore ayuu magaciisa ku soo galay wuxuu leeyahay ustaad waxaan ka codsanayaa in aad sidaa ku keentay
aad noo sharaxdo adoo mahadsan sidee markaa xisaab fideogan aanan ka shaafin waxay ahayd fideo aynu sameynay oo aynu baartituuga u dhignay sidaynu u keenay u sharaxno marka waxaanu leenahay fideoga hadda daawatay ku xiga un daawo kaasaad ka helaysaa sida loo keeno dhammaystiran exactly axmed jawaabtaana ka shaafiyey isagana sababta lagu helayo video kale jiro faahfaahinta ku siinayno insha Allah shukran waa halkanna waa daawado kale magaciisa ku haynaa axmed siciid axmed cabdi baa la dhahdaa axmed cabdi wuxuu leeyahay assalaamu calaykum walaal ustaad wacalaykum salaam waraxmatullah waanu kaa qaadnay salaanta waan ku salaamay buuna leeyahay waxaan u baahanahay xisaab online ma ku dhigtaa xisaabta axmed horta su-aashaasi dad badan baa la qaba oo meelo kala duwan jooga aad waana su-aasha ugu badan ee nala soo weydiiyo jawaabtu dad badan oon isku daya inaan siino laakiin si fiican u wada siina dhammaan dadka oo dhan oo ku xiran kanalkeena may si online ah kuma dhigno sidoo kalena iskuulna nooma furna oo iskuul yani dadka ay yimaadaan tusaale dadka halkan jooga oo kale hadda annaga waxaan joognaa magaalada Hargeysa iskuul dadkan u baahan reer Hargeysa ama wixii u dhowna ma jiro online kuma dhigno annaga kaliya waa inta aan soo gelino yani inta barta YouTube ka aan soo gelino iyo social media kale sida Facebook oo kale page ka aynu ku leenahay sababtu ma aha inaan dadkan walaalahayaga jecel waxa aan la jecelnahay inay nala qaataan inaanan maaragtay siin karin ma aha sababtu waa xaggii fursadda ama waqtiga sababtoo annaga intaba waxaan nahay shaqaale xoogsata iska xamaasha waqtigeennii caadiga ahaa ee ballanta aan ku qaadno inaan shaqaysano ayaa yani nagu badan marka waxaan noo saamaxaynin waqtiga inaanan haddana waqti kaloon time badan ku bixino sabab haddii aan ballan qaado tusaale anigu hadda aan tidhaahdo waan bilaabaya waan ogahay inaan helayo dad aad u badan meelo kala duwan jooga inaan helayo waan ogahay tiim ahaan waa arrinkaasi waan laakiin ballan waa oofin haddaad uufo bilahdina laxdi kaana mas-uula yani aayadda qur-aanka haddaad waxaad ballan qaado inaad fuliso يعني حقوق لنا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يعني وحادا سمين إن حسميننا حدي مركب بلان أنقاذنا أنكسو بحي ونحن نقولنا إن ذاتكي يعني خلافي بحي هشيز كينا يعني كبحيا مركب إن شاء الله لكن هدو إلهي إذن وقت نو سامحو وحن اسكو داي دونا كورسيو غاغابان أو بلو أو قيب اسكو حران qayb dhexe ilaa qayb advance ah inaynu sameeyno hadduu waqtiga noo saamaxo markaas laga maarmi waayo waqtiga noo saamaxo waxaan u samayn doonaa gaar u soo duubno oo aan magacyo u bixino qaybtii koowaad qaybtii labaad qaybtii saddexaad oo kala duwan insha Allah taas ayaan rajayn doonaa inay noqon doonto laakiin waan ka xunnahay wallahi waan dareemi karaa iga raali noqda waan la jecelnahay runtii laakiin time kan saamaxayn waa mahadsantihiin waxba hadda online kuma dhigno daawada kale ayaa wuxuuna leeyahay isaguna ustaadow waxaan ku weydiinayaa xisaab online ah ma bixisa inaad ii jawaabtaan ayaan rajaynayaa dabcan waa isla jawaabtii su-aalaha intaas u badanba insha Allah taasa ka shaafin doonta aragsan samatar baa iyaduna daawado kale weeyaan waxay leedahay waad salaamantihiin Siciid Axmed iyo Cumar dadaalka waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo carruurteeda wax barto wax badan ayaan idinka faa'iiday keep it going hooyo aragsan waad mahadsan tahay iyadoo kalena waan rajaynayaa hooyooyinkan Soomaaliyeed sidaas inay noqon doonaan hooyo waad mahadsan tahay dhiirigelintaadan waan qaadanay waan sii wadi doonaa insha Allah wixii aan naqaanana waan soo bandhigi doonaa haddii alla idmo adna sida aad sameysay carruurta u sii faa'iiday insha Allah si lamid ah ustaadka waxaan jeclahay inaan hooyo aragsan mahad celiyo waayo waa hooyo wax baratay oo hooyo kamid ah dadka aanu shidaalka noo ah aanu maaragtay aanu ku helno awoodda aanu ku dhaqaaqno aanu ku shaqeyno hooyo mar walbaba Cumarow hooyo wax barato ama yeena baran waa ababiyaha ama qofka ugu يعني قف كم مدن مبجربا حتى هداي مي جوجتو هداي مقالة جوجتو هداي وحبرتو هداينا وحبران هاي هو educator ugu horeeya ee waxbar sababtoo ilmaha yaraantii waxbaraba
iyadun baan soo barta marka insha Allah aad baa u mahadsantihiin hooyooyinkeena dhan qalbigaad naga ilaahay raalli ka wada noqdo dhamaantiinba hamsik bahdoon isaguna waa daawada kale wuxuuna leeyahay ustaad aad baad mahadsan tahay waad ii fahansiisay runtii xisaabtu way igu adkeed laakiin qaabkaaga aad ula dhacay qaabkaaga ayaan aad baa ula dhacay waan kula socon doonaa walow aan soo daahay cilmi allaha ku barakeeyo welcome soo dhawow saaxiib soo dhawow maxamed cabdi isaguna waa daawada kale wuxuuna leeyahay teacher Saciid بليز أضاع عدسك أقبلها حاجة يسوق قيمتها حاجة حوجة الناصح سوق قيمتها بدي سوق قيمتها وإن شاء الله إن شاء الله واي سجنوا وواصل دون نصائح thank you very much يوتيوب قناة كان كلو إحنا ليه وآرك مذوق مجلس آرك مذوق أدياد أيان وجهلي برنامج كان معلنك أد بالنسلامية يو سبسكرايب أياد هشين وأنت معلنك استوى حسوا قلنا thank you صاحب شير تنا نراعي كم كنا كتجين يعني تاهين ودعوة كلو إحنا ليه مجلس وحويان قريبة لفق عسين وأستاذ سعيد حاجة runtii hiil buu waayay xisaabtii nin ajnabi ah dejiyo waan qaadanaa oo adduunka dhan waxa qaacido xisaab laga dhigo shakhsi baa dejiyay ustaad Saciid wuxuu keenay boqolaal qaacido oo cusub wuxuu xaq u leeyahay in lagu qoro adduunka oo lagu baahiyo mahadsanid ustaad Saciid xaga Allah thank you very much saaxiib dhiirigelin weyn waan qaadanaa saaxiib thank you guri Allah yibaarik taageero weyn baa ku ahay waliba anigu shakhsiyan mar labaad okay next daawadahani wuxuu leeyahay aad baad mahadsan tahay ustaadkeena qaaliga ah waa xasan dhuux okay xasan dhuux waan ka qaadnay daawadahan magaciisu waa xasan dhuux aad baad mahadsan tahay buu inuu ustaadkeena qaaliga ah run ahaantii aad baan ugu farxaa aragtidaada iyo sharaxaadaada quruxda badan waxaan is dhahaa ilaahay raalli ka noqdo Allah muxuu macalinka kugu noqon waayay yaraantaada iyo waqtigii iskuulkaaga macnaha muxuu wax kugu soo bari waayo iskuulka kugu dhawaad aad baad mahadsantahay saaxiib hadda waan wada joognaa saaxiib kala faa'iideysanayna mar kale ictimaad waxay ictimaad baa soo noqday mise way soo noqotay magaca ictimaad assalaamu calaykum Saciid xagaa afrax calaykum salaam waraxmatullah waan ku cusubahay kanalka qiimaha badan ee aqoonta xisaabta hoose bilow xisaab soo bilow okay xisaab soo bilow soo ma waqti jawaabti hore insha Allah qaybaha hoos oo bilaabay waa faaladii ugu dambeysay iyo mar kale oo ay soo noqotay ama uu soo noqday wax yahay ma kala garanayno ictimaad waa kanalkaas YouTube-kiisa magaciisa ma sha Allah waan helnay waan ka faa'iideysanay mahadsanid fadlan taxana inooga dhig insha Allah waan kula soconaynaa teacher ma sha Allah Allah ku xafido dhamaanteeda horta Allah inoo wada xafido insha Allah سؤال بدنا جرات قبتين وأن أوجه لكن وقتك أستاذ هل سؤال هي سؤال أنا قبو بدينا أيدا وضياش لقيا بينك ولا قبان طبعا أوكي واحد هاي سؤال شاس واحد ورنيسا ما أنت أنا داوضياش مثل إيه داوضيال سؤال شاس واحد لا هاي معلن حسابات كان الناس بسد معلنك استقاعدوني كوين أن لو ذاكتيد ما wax adiga kugu dhashayba oo aad adigu ikhtiraacdid oo innovation ah mise linkiyo iyo tixraac iyo qaacidooyin hore oo jiray ayaad raacdaa that's a good question waa su'aal aad u fiican horta waxyaabahan aan soo bandhigo waxay isugu jiraan saddex qaybood number 1 qayb anagoo yar oo ku jira dugsiga hoose ilaa dugsiga dhexe macallimiinteennii hore dhamaantood ilaahay ha wada naxariisto loo baahan yahay mid gaar iyo marka qofka dhintay markuu nool yahaba ilaahayna ajir aan la soo koobi karin xasan Allah ka siiyo macallimiin badan oo macallimiintayda ah oo hadda meel ku sheegan ayaa kamid ahaa dadka wax ka bartay markaan yaraa iskuulada dugsiga hoose dugsiga dhexe wali special dugsiga dhexe macallin Ismaan Drog la dhihi jiray macallin Ismaan Drog ayaan ku xusuustaa aad buu u fiicnaa macallinkaasi qayaanooyin badan oo dhanka xisaabta wankii aan ka bartay qayb waa qaybta aan soo bartay qayb waa qayb jirta oo yani formula jira oo adduunka dhan u isticmaalo meel kastana laga heli karo luqad kastana ku qoran qaybna qayb aniga ii gaara oo marka aan isku rabo inaan wax sameeyo waxaan raadiyaa maxaa yani say ku soo bixi kartaa maxaa cusub maxaa hadday sidaan noqoto sidaan ma noqon kartaa haddii qaabkan loo isticmaalo maxaa soo bixi kara laba number markay noqoto isku si ma soo baxaysaa marka saddexdaas qayb isugu jiraan laakiin markaas dadku waxaan u sheegay anigu waxbaan aqriyaa waxbaan dhegeystaa
waxbaan daawadaa xusuusahaygii iyo maxaan ku irahdaa wixii adduunka ka jira oo kale oo cusub iyo waxaan aniga ku darsadaba intaba way wadiyihiin xisaabaadka laakiin wax aniga uun ii gaar ah oo aniga uun aan ikhtiraacay oo 2 loo geeyey 3 waa 5 horta maaha sidaasay isugu jiraan ta ugu dambaysana waxay tahay fahamkii ku xiran tahay adig sida u fahamto hadda waxaan ku gabagabayn lahaa maadaama uu xaggan cumar nooga dhammaaday sidan oo kale ayaan khiyaanooyinka loo samayn karaa ugu fudud tusaale ahaan hal lagu daray hal loo geeyey waa 3 haddaan ku idhaahdo waa diidaysaa hadda maskaxdaadu ma ogola say ku noqon kartaa 1 iyo 1 3 markaasaan ku leeyahay way noqon kartaan ku leeyahay markaan sidee 1 iyo 1 adiga isku dar 1 iyo 1 isku dar markaan ku dhawaad adigu isku darto maxay noqonaysaa 3 way adaa isku daray marka waxyaalahaas oo kale waxaad adigu samayn karto qof kastana uu samayn karo insha Allah Sidiiq maxaad gabagabeeyay adiga bay Umar ogid ma soo gabagabeeyay si wanaagsan waxaan leenahay daawadayaal ha ka daalina inna dhiirigelisaan faalooyinkii noo soo dirtaan kadib markay noo soo dirtaan in soo gaaraan waan falanqayn doonaa isla eegi doonaa isla rogrogi doonaa dabadeedna waan idiin soo gudbin doonaa next video na wax cusub aynu soo gelinayna insha Allah waa Axmed Sidiiq oo ah ninka kaamirada markasta ka dambeeya waxa wanaagsan in idiin soo gudbinayna isagoo noo duuba aad buu mahadsan yahay daawadayaal markii la yaatay inuu dhahan aad buu mahadsan tahay ustaadkeeni Siciid Xaga oo isaguna ah laf dhabarta kanaalkeena iyo cilmiga aynu halkan ka soo deynaba iyo walaalkiini miskiinka ahaa Umar Awgeedi jadal yare waxaan leenahay daawasho wanaagsan daawadayaal aad baad mahadsantihiin sidaa iyo nooli kulantay. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.